munaasabada waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Cami, agaasimaha hay'adda wadooyinka Puntland ee BHA, qandaraaslayaasha Puntland iyo kuwa caalamiga ah, qaar ka mid ah wasaaradaha Puntland, mas'uuliyiinta midowga Yurub, hay'adda kaalmada Germany. Ujeedada munaasabadan oo ay u qabatay hay'adda wadooyinka Puntland ee BHA ayaa ah in shacabka Puntland ay u soo bandhigto mashruuca dhismaha wadada laamiga ah ee isku xirta Puntland. Agaasimaha hay'adda wadooyinka Puntland ee BHA Maxamuud Cabdinuur Aadan ayaa sharaxaad ka bixiyay mashruuca dhismaha wadada laamiga ah ee isku xirta Puntland, wuxuuna sheegay in Soomaaliya oo dhan ay ka faa'iideysan doonto dhismaha wadada lana bilaabayo toddobaadkan qiimeynta wadada. Ku-xigeenka dowladda Puntland, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha line minister kala ah mashruuca kan, mas'uuliyiinta GIZ, madaxda sharafta leh ee meesha fadhida wasaaradaha iyo hay'adaha madax bannaan ee dowladda Puntland, madaxda ka socota hay'adaha internationalka ah oo xiriirka la leh mashruuca kan, qandaraaslayaasha localka ah iyo kuwa internationalka ah, odayaasha dhaqanka, bahda saxaafadda, qunsuliyadda safaaradda Itoobiya ee Garowe. Dhammaan waxaan ku salaamayaa martidaas iyo mudanayaashaas salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam dabadeed farxad weyn bay noo tahay maanta inaan nagala soo qayb gashaan workshopkan aynu rabno inaynu ugu sharaxno ummadda reer Puntland iyo saaxiibadayada aan bahwadaagta nahayba ashii looga hadlayo wadada Garowe Kalkayo iyo Garowe Qarqo oo mashruuca EU iyo dowladda Jarmalka ay maalgelinayaan ka mid ah. waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar u sharaxo ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. waxaa mashruucaasi noqonayaa 4 qaybood oo waaweyn. qaybta koowaad waxa weeye dayactirka wadada oo loo qaybiyey 4 section. sectionka koowaad ee shaqada laga qabanaya waxa weeye xarfo jalam oo ah qaybta ugu liidata marka la fiiriyo burburka ka muuqda wadadaas. waxayna noqonaysaa shaqada laga qabanayo dib u dhis buuxa. qaybta labaad waxay noqonaysaa xarfo Gaalkacyo iyo jalam Garowe iyadoo si simana ah ama isku waqti ah loo qabanayo. waxaa shaqada laga qabanayaa inay noqonaysaa dayactir dibadda wadada dhexdeeda ka samaysmay iyo galbaha laamiga showbiska oo waxa uu soo yiraaday. qaybta afraadna waxa weeye wadada Garowe Qarqo oo 200 kilomitir ah oo iyadana waxa weeye galbaha laamiga uu ka soo yiraaday iyo wadada bartankeeda ah iyo buundooyinka ku jira qaybtaas oo intooda badan ah buundooyin mirilay oo ka samaysan bir shaqada labaad oo laga qabanayo EU-da iyo GIZ iyo hay'adda wadooyinka qabanayaan waxa weeye dib-u-dhisidda tayada. Keep it short. Mr. Vice President, Excellencies, honorable members of the Parliament, members of the community, ladies and gentlemen, I have seen at least 2. On behalf of the German Development Cooperation, I'm honored to welcome all of you to the validation workshop of the Sustainable Road Maintenance Project. The project is implemented by GIZ in close partnership with the Puntland Highway Authority on behalf of the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Although it has been a long way with a number of frustrating delays, we are finally here to proceed, and we are here to proceed until we have finally reached our joint objectives. We have a very dedicated team in place. We have gathered assets, we have identified our field office locations, and we have experienced an impressive support by all levels of the Puntland government. Mr. Vice President, especially for the letter, let me express once again my gratitude to your government. Thank you very much for that. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Engineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Cami ayaa amaanay doorka hay'adda wadooyinka Puntland, wuxuuna sheegay in shacabka Puntland looga baahan yahay in la helo kaalintooda horumarineed wadooyinka.
shirkan muhiimka ah ee runtii reer Puntland muddada faraha badan ay sugayeen oo aan rabo inaan ka xuso hay'adda wadooyinka Puntland meesha oo aan xuso EU-da iyo GIZ oo shir dhaqaalaha lagu bixinayo mashruucan isaga ah runtii bixiyey maantana goobtan iyada ah jooga aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sida aad la wada socotaan mashruucan in badan baa reer Puntland ay sugaysay runtii kadib dalka markii waxaan la yaabnaa war haddii dawladdii wax qaban weyday shicibkii iyo tujaartii iyo culimadii iyo ismadii maxaa ku dhacay maxaa wuxuun looga qaban waayay jidkan isaga oo runtii markaa aan dareemayay inta lagu samayn karaayo markii aan qiyaasay jidka isaga oo aan ku qiyaasay anigu ilaa 85 kilomitir inay aad u weyn iyo inta uu markaa ila yeelayo waxaa fara badnayd inta uu markaa ila yeelayo marka waxaa ilaahay uga mahadcelinayaa marka ugu horeysa awlan mar labaadkana EU-da guud ahaan iyo channelka dowladda channelka oo ay wakiil uga noqon doonto insha Allah GIZ oo hagaajin lahaa gacantana loogu hayn lahaa Cabdiqani Maxamed Axmed Colson TV Garowe